عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تهقف عقل بدن أوربتيد إنا نقطة الدبال محاس مانع شيء كذا المانتا سؤال شيء كساب سنتاي سليه كنا قناة دبال وقرين شيء كذا وحيابيك هالليسو إقراء دعك بحنا قرأ شيء كذا ومارتن باج وقرأ فرنسيس شيء كذي سا وحلو ترجمي عربية وهذا أكسو آخرية وحاول ترجمي مركز كثقافة العربية sheekadu waxay soo gudbinay waaqac maanta dad badan ay ku nool yihiin dhinac kalena waxaa ku jira jees qosol laakiin marna waxa la hilmaami karin qaabka qoraaga uu sheekada u qoray tafaasiisheeda cajiibka ah iyo sida uu sheekada ku dareensiinayo ujeedada sheekada uu kala yahay oo ku soo gaarsiinayo sheekada oo guda galna markii sheekada waxay ka hadlaysaa qof la dhaho Antoine waa wiil caqli badan caqligiisana caadiga ka baxsan yahay laakiin asaga wuxuu arkay in caqligiisa tirada badan oo dhibaateynayo noloshiisa caqabadna uu ku yahay wax walba oo nolosha ku arko oo taxliilinaa meeshay ka imaadeen sababta ay ku dhaceen meesha ay u socdaan wax walba uu baranaa uu daraaseynaa uu raadinaa ma harsado ma seexdo wax walba uu ka salgaaraa marka noloshaas uu ku nool yahay uu aad u dhibsaday wuxuu go'aansaday inuu wax ka bedelo fikradii ugu horeysay oo maskaxdiisa ku soo dhacday wuxuu dhahay waa inaan noqdaa cabtooy wuxuu go'aansaday inuu noqdo cabtooy laakiin intuusan bilaabin wuxuu tagay maktabadii mar walba uu ka soo amaahan jiray buugaagta oo wax ku akhrisan jiray wuxuu soo aruursaday wax allaal wixii buug ka hadlay khamrada iyo noocyada iyo wax walba khamrada ku saabsan maadaama nin caqli badan uu ahaa maraba inuu noqdo cabtooy caadi ah wuxuu rabaa inuu khibrad fiican ka qaato cabtooynimadana looga dambeeyo buugtii markuu akhriyay kadib wuxuu raadiyay macallin cilmiga khamrada ku dheereeya oo asaga tababara siduu u raadinayo ugu dambeyn maalinka dambe wuxuu arkay nin kalaab ku jiro oo 11 koob oo noocyada khamrada kala duwan ee ku jirta ay ag yaalaan wuxuuna go'aansaday inuu ninkaas macallin ahaan u doorto sheekada dheereed ee dhexmartay Antoine iyo ninkii uu macallinka u doortay waxaa kamid ahaa in Antoine uu dhahay xanuunka khamrada ay sababayso waa xanuun la yaqaan oo loo jeedo laakiin waxaa ka daran xanuunka fikirka uu ugu hayo fikirka tirada badan oo meel aan la aqoon ka imaaday ay ka daran marka asaga wuxuu doorbiday in xanuunka khamrada ay ku sababayso jir ahaan iyo maskax ahaanba ay ka fiican tahay oo ka dhib yar tahay fikirkiisa iyo caqligiisa badan xanuunka uu ku hayay Antoine wuxuu tababartaba uu ku feel garoobay inuu cabtooy noqdo oo noqon waayay kadib wuxuu go'aansaday inuu isdilo laakiin sidoo kale wuxuu rabaa inuu qaab xariifnimo ay ku jirto oo caqli buuxo ku jiro inuu isku dilo waxa halkaas ka bilaabmaysa naagtii isbitaalka isku arkeen iyo sheekadii dheereed oo dhexmartay iyo markii ugu dambeysay inay u tilmaamtay iskuulkii lagu baran jiray habka ugu wacan ee la isku dilo kadib Antoine wuxuu guda galay inuu cashiradii qaato oo iskuulkii uu tago laakiin ugu dambeyn sidoo kale ayadan uu ku feelgaroobay inuu isdilo Antoine markuu ku guulgareystay isku dayaashiisii oo dhan maalin maalmaha ka mid ah asaga iyo asxaabtiisii oo fadhiyaan maqaayad ay seenbari fariisan jireen ayuu ka istaagay wuxuuna ka jeediyay khudbad aad u dheer oo buuggiisa ugu qorneed khudbadaasna waa meesha ugu qatarsan ee ku jirto buugga waa meesha ugu nuxurka badan ee buugga ku jirto ayada dhan marka ma soo wada qaadan kari laakiin waxaa ka soo qaadanaa laba wax wuxuu dhahay qofkii inuu isku dayo mar walba inuu wax fahmo waxay ka dhigan tahay inuu isdilaayo oo naftiisa dilaayo sidoo kale wuxuu dhahay shahwada yaqiinta ama wax walba in oo ka dhaadhacaan waa shahwada adduunka ugu xoog badan waxay ka xoog badan tahay damaca lacagta jinsiga iyo awoodda intaba khudbadda markuu dhameeyay kadib Antoine wuxuu iclaamiyay inuu noqonayo dabaal Antoine caqligiisii wuxuu u ekaa markii hore sidii galeer cirka duulayo wax walba korka la socda indhihiisa meel dheer wax ka arkaan xaqiiqada ka daba taga markuu go'aansaday inuu dabaal noqdo caqligiisu wuxuu noqday sidii shimbir iska caadiya qoraxda iyo doogga oo ku raaxaystaan indhihiisa
Antoine wuxuu ogaaday hadduu isku dayo inuu wax walba fahmo inuusan waxba jeclaanaynin noolaanaynin, sababtoo ah wuxuu ahaa asiga keli dadka inuu dhexgalo ay dhibi jirtay. Fikradda ah marka qofka inuu isku dayin inuu wax walba fahmo, hadduu fahmana uusan waxba jeclaanaynin, waa fikrad xaqiiqdii aad iyo aad u xeel dheer uu kaatibka u tilmaamay. Marka antaas waxaa ku darsanaa, waxaa maqli jiray haddaa rabtid inaad ruux jeclaatid ha isku dayin inaad ka ogaatid wax walba, sababtoo ah qofka wuxuu leeyahay dhan san iyo dhan xunba, laakiin haddaa isku daydid inaad wax walba ka ogaatid waxaa ogaanaya dhankiisa xumaa, waxaan laga yaabaa inaad nacdid. Marka jawharada fikradda ama sheekada uu kaatibku soo gudbinayo waa tana. Antoine markuu dabaal noqday wuxuu noqday ruux aan fakaraynin, waxba baaraynin, labiska ugu dambeeya suuqa soo baxa ku mashquula, baabuurka midka ugu dambeeya. Wuxuu noqday insaanka maanta adduunka anaga u aragno inuu horumar gaaray camal. Dadka adduun weynaha oo iska dhex galay, shirkad saaxiibkiis uu lahaa oo ka shaqo bilaabay, hanti waaweyn uu tacbaday. Antoine-kii fakari jiray, ka murugoon jiray baahiyaha ummadda Yurubeed kuwada dhibaataysan, wiilkii damiirka lahaa oo markii hore farxad u ahayd in dadka la caawiyo, maanta wuxuu farxad u yaqaanaa in la iska indhatiro waxaas dhan oo sida dad badan oo maanta adduunka ku nool ay sameeyaan camal. Markii hore akhlaaqdiisa waxay kala sharaf badneed wax walba, wayna kala qiimo sareysay, laakiin maanta wuxuu farxad ku darsaday in akhlaaqdiisa uu ka tanaasulo. Marka sheekada nuxurkeeda iyo jawharadeeda waa intaas. Kaatibka aad iyo aad u tafaasiiliyay oo uu fariireystay, waa sheeko cajiib ah. Markay akhrinaysid isdhaysid filim ma fiirsanaysaa, qaabka uu qoray cajiib lagu daraa. Marka wuxuuna ka run sheegay Martin Bag markuu dhahay nafta waa waxa ugu fudud ee la fasahaadin karo. Cajiib waay. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen sheekadana akhrin doontiin. Waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan. waxa waay buug sheeko oo yar ma ahan, waxaa dheer tahay ilaa 160 page ka kooban. Marka insha Allah sidaas aan kaga sii tagaa iyo wax akhris fara badan iyo khayr fara badan.